shaqaale weynaha golahaasi ma wuxuu ku imaadaa dee ma hargeyso keliya habaysa ma fulinta ama dee shirgudoonka balqaab nooceeya ayay ku imaadaan dadka shaqaalaha colaadahan bariga ka soo cusboonaaday horena uga jiri jiray iminka colaadahan waddanka ka socda xildhibaan ahaan iyo wakiil ahaanba maxaa idinka qorshaysan waxaa idinka qorshaysan hablaha shaqaalaha ah ee guryaha ka shaqeeya ma haystaan xeer ilaaliya sababtoo tacadiyo badan baa ku dhaca hablaha guryaha ka shaqeeya ee loo yaqaan shaqiyadaha laga yaabo xildhibaanada qaar ba iyagoo kali ah hortaagan iyagoo kali wasaaradaha mashaariic gaar ah ka qaadanaya halka xildhibaanadii kalena ay meelo kale ama waxyaabo kale ka hadlayaan marka maxaa idin diiday idinkoo 15 tugdheer laga doortay ah inaydu idinkoo midaysan oo burca ahaan ama tugdheer ahaan u socda inaad danaha burca u hawl gashaan inaad su'aasha isweydiisaan xaq baad u leedihiin annaguna waxa dhaba inaan runtii si midaysan wada shaqaynayno oo aan waxa weeye wixii na soo marmar haday dhacaan de kulay muddana waan iska tababaranaynay oo taaqudheedu 2 sano mudanayaal waxa ka warqabtaan in sanadii ugu dambeeyay badi suuqyadii waaweynaa dalka oo dhan uu ka kacay dab taasina saameyn weyn ay ku keentay dhaqaalihii dalka anigoo og waajibaadka arrimahaas inay yihiin dawladaha hoose haddana maadaama ay tihiin wakiiladii duqa degmada iyo mudanayaasha golaha deegaanka waxay hore u sheegeen in suuqa burco oo u badan isku raran wax laga qaban doono maadaama idinkuna hadda ay joogtaan ma idiin muuqataa dhibaatadaasi ama qorshaha ma idinku jirtaa maadaama ay tihiin wakiiladii dadkan in dawladda hoose ay ka caawisaan idaariyan iyo iqtisaadiyanba in bal suuqan loo sameeyo procedure maadaama runtii dee dhibtaasi ay nagu soo noqotay dab baa ka kaca waa runtiisa oo suuqyo waaweyn oo geeskan Afrika ku yaala oo magaalooyin badan oo ummadda Soomaalidu ay degan tahay suuqyo badan baa dab ka kacay ilaa geeska Afrika oo Kenya maamul goboleedka Soomaalida ee Ethiopia iyo dalkeena Somaliland ba suuqyadiisi meelo badan buu dab ka kacay runtii inkastoo ay tahay hawlo yacni magaalooyinka iyo mas'uuliyiinta magaalooyinku waajibaadkoodii loo doortay ay yihiin haddana waa wax wanaagsan loona baahan yahay in xildhibaanadu bacdama ay tahay dhibaato imaka geeyigan beryahan dambe aad ugu soo noqnoqonaysay in qadiyada ama arinta maamulada magaalada aan isla wadaagno insha Allah taala maayirkuna uu nala fadhiya suuqan burco hadii aad wax ka dareemaysaa khatar ka soo socota insha Allah taala waxaan ku baraarugsanaan doonaa annaga isaguba bal in aan maartay wax iska weydiino sidii dhibtaas hadiiba ilaahay naguma keenee looga sii hortagi lahaa aad iyo aad balka aan intaasan kaga gudbay hataan xildhibaanada kale wax ku daraynin su'aasha labaad aan jeclayn inuu weydiiyo waxaan si gaar ah jeclayn inuu weydiiyo xogayaha golaha wakiilada oo ah odaygii golaha muddo dheerna soo xukumayay waxaan ognahay in shaqaale fara badan golaha wakiilada ka shaqeeyo marka waxaan isweydiinayaa shaqaale weynaha golaha wakiilada ka shaqeeya maadaama uu yahay golo wakiile ama macnihiisu yahay House of Representatives golihii matalaadee dadkan matalayay shaqaale weynaha golahaasi ma wuxuu ku imaadaa dee ma hargeyso keliya habaysa ma fulinta ama dee shirgudoonka balqaab nooceeya ayay ku imaadaan dadka shaqaalaha su'aashiisa waan saxayaaye dee bulshada xisaabtanku wuxuu ka dhaxeeyaa waa golaha wakiilada waa mudanayaasha la doortay marka shaqaalaha uu hawshooda ka hadlayay laftirkiisu dee xogayuuna ka mid yahay oo isaga qudhiis waa shaqaale marka waa arrimihii gudaha arrimahaasi u yaala baarlamaanka gudihiisa iyo golaha wakiilada gudihiisa u yaala marka idinku waxaad dee xaq u leedihiin su'aalaha inaad golaha aad xildhibaanada weydiisaan marka intaas waa saxiitaan weeyaan toos baan u gelayaa maxaa badanaa la idima arko idinkoo intaad iskiin isku abaabushaan ka hadlaya colaadaha waddanka ka jira iyo nabadeynta waddankaba gaar ahaan colaadahan bariga ka soo cusboonaaday horena uga jiri jiray iminka colaadahan waddanka ka socda xildhibaan ahaan iyo wakiil ahaanba maxaa idinka qorshaysan colaadahan maadaama dee waa kugu dhimay oo kaa dhimay
in waddankii sidan ku sii socdo xalal kale aad u weydeen baa jirta mise intay beelbeel u soo saarayaan go'aamo iyo ku dhexdooda ah baad sugaysaa maadaama idinka taladii gacantayda ku jirto tii sarena la xisaabtamaysaan odayaashu daynama xukumaane idinka xeerarka sameeye maxaa idinka idinka qorshaysan nabadeynta haddaan su-aasha inanka ugu horreyna weydiiye ah dagaalada iyo arrimaha waddanka socda waxa weeyaan waa dhab weeyaan oo baarlamaanka awoodihiisa waxay ka mid tahay marka dagaal laftirkiisa marka la gelayo waa in sida adduunyadaba ka jirta baarlamaankeenna baarlamaanadu la mid yahay xeerarkeena oo sheegayaan golaha waa inuu oggolaansho bixiyaa sidaa daraaddeed arrintii markii ay bilaabantay ugu horreysay waad ogeydeen golahu wuu galay go'aamuu soo saaray xaaladduna sidai ay ku dambaysay waynu ogeyn mar kasta waxa weeyaan aragtidayadu waxa weeye inaan colaad iyo dagaallo inaanay danta bulshada ku jirin bulshada danteedu waxay ku jirtaa nabadgelyada iyo runtii waxa weeyaan ummaddu wixii dhexdooda timaada in laga shaqeeyo difaaca qarankana runtii waxa weeyaan dee cid baa loo igmaday oo dastuurkuna sheegaya dowladda jamhuuriyadda somalilan ayaa dee mas-uul ka ah haddii ay ka gaabiso mas-uuliyaddeeda ay gudan weydo waa wax kale markaa mar kasta dagaaladan iyo waxa weeye waxay dee rool la waaban iminkaadanbo dee rool waanu qaadannay oo dee waad ogeydeen oo iminka xeerkan aanu idinkala hadlayna laftirkiisu gacanka hadal buu sababay oo waxa weeye dagaaluu sababay waa annagaa dee roolkayga qaadannay ee dee iminkana ku taaganale dee waxa weeyaan ka shaqaynayna marka taas waa taasoo waanu u taagannahay sidii runtii wax dalku guud ahaan oo runtii xasilooni iyo nabadgelyo uu heli lahaa intii aanu runtii waxa weeyaan ugu badanna waanu ka shaqaynaynaa arrintaa laakiin laba qol baan kusoo koobaya su-aasha hore waxay tahay waxaan la soconaa maynu ka hor haynaa burca waxaa laga doortay 15 xildhibaan 15 xildhibaan golaha markii ay tageen xildhibaano kale u tageen ama xildhibaano kale ku beeran oo ay ka mid noqdeen oo golayuun bay dee dhex galeen kadibna waxaan aragnay iyada oo xildhibaanadu ama hab qabiil ay soo urursanayaan ama hab xisbi ay soo urursanayaan marna mayna arag xildhibaanadii burca laga doortay iyagoo 15koodii oo midaysan oo dan burca ay leedahay ka hadlaaya marka maxaa idiin diiday idinkoo 15kiinii tugdheer laga doortay ah inaydan idinkoo midaysan oo burca ahaan ama tugdheer ahaan u socda inaad danaha burca u hawlgashaan ama ka hadashaan ama aydan maxaa idin kala haya dadku waxay tabayaan ama la isweydiinayaa maxay bay qabyaaladda iyo xisbinimadu ugu xoog badatay dantii gobolka waxaa laga yaabaa xildhibaanada qaar baa iyagoo keli ah wasaaradaha hortaagan iyagoo keliya wasaaradaha mashaariic gaara ka qaadanaya halka xildhibaanadii kalena ay meelo kale ama waxyaabo kale ka hadlayaan arrinta kale ah runtii waxa weeyaan maxaa idin kala hortaagan inaad wada shaqaysaan waa su'aal aad iyo aad u muhiima waana su'aal runtii waxa weeyaan aan golaha oo kaliya ahayn dowladnimada Soomaaliland xitaa in fulinta garsoorka iyo baarlamaanku iyagoo wada jira oo runtii waxa weeye ay wada shaqeeyaan waa waxyaabaha horumarka lagu gaari lahaa xusbiyada ururada ummaddu way wada shaqeyso waxa laga yaabaa su'aashani waa dee anigoo caawayda weydiiya waxa weeyaan baa laga yaabaa dee waxa laga yaabaa idinku qudhinu markaad halka joogtaan intan oo kale inay dhalinyarada laftirkeeda magaalooyinka degan hargeysa burco tay doonta ahaatay inay ku dhex jirto ayaa laga yaabaa laakiin caawa annagoo midoo wanaga halkan idin hor fadhina mudanayaashii kale aan caawa halkan jooginna dee annagunbaa wakiil ka ahoo sidan annagoo runtii midaysan oo wada fadhina oo su'aalihiinna dareen isku mid iyagoo noo samaynaya aanu idinka jawaabayno ayaa runtii caddaynaysa dee inaanu midaysannahay siyaasadda marmar waa lagu kala duwanaan karaa adduunyadoo dhan iyo baarlamaanaduna waa caynka laakiin waxa weeye runtii inaad su-aasha isweydiinsaanna xaq baad u leedihiin annaguna waxaa dhaba inaan runtii si midaysan u wada shaqaynayno oo aan waxa weeye wixii na soo marmar hadday dhacaanna dee kolley muddana waanu iska tababaranaynay oo taa qudhaydu labadaas sano dee muddadii aanu cusbayna way ka mid ahayd aad baad u mahadsantihin waa midaysannahay xildhibaanada gobolka togdheer laga soo doortay ee 15 xubnoodii waa xildhibaano midaysan hawlo fara badan oo gobolka leeyihiinna ka wada tashada ka wada shaqeeya markaanu golaha joogno iyo markaanu dibadda joognaba wax badan oo ka muuqanayana way jireen haddii aad miidiyaha la socoto annagoo dan gobolkan togdheer uu leeyahay ka hadlayna kolley
afarteedan xildhibaan waxaan u marayaa maalin dooxa aanu ka hadlaynay burco annagoo midaysan ayaanu ka wada hadlaynay wax ka qabadkiisii maayarkuna runtii wixii aanu ugu baaqnay wuu ka qabtay oo de waa dhisan yahay meeshii uu ka faruurmay ee uu magaalada ka qaadan lahaa daadku si midaysan baanu uga howlgallay maayarkana kala howlgallay wuu ku mahadsan yahay taa waxaan kuu sheegaa ha arkin marmarka qaar siyaasadda dee dadku ay ku kala yara duwan yihiin laakiin gobol ahaan xildhibaanada gobolka togdheer waa dad midaysan oo wada shaqeeya danaha gobolkana aad ugu soo wada jeeda intaasaan kaa leeyahay taas waa qodobka xiga waa qodob ku saabsan waxbarashada runtii anugu macallin baan kole ahay xagga waxbarashada maadaama idinku aad tihiin mas-uuliyiin heer qarana oo waxbarashada lafteeduna ay tahay waxyaabaha aad ay xilku idinka saaran yahay runtii waxaynu ognahay waxbarashadeennu heerar badan bay soo martay hadda maasha Allah way fiican tahay laakiin runtii waxaa jira hatta aan meelo badan oo saluug badani ka jiro hal qodob baan markaa idin weydiinaya oo weliba xagga dhaqaalaha ku saabsan ardayda marka jiisiga laga qaadayo lacag baa laga qaadaa $20 qiyaastii meelahaasna lacagtaasi sida igu maqaalo ama aan maqlay ma marto wasaaradda maaliyadda meelo kale ay ku dhacdaa sidoo kale ardayga marka shahaadada uu qaadanayana lacag baa la weydiiya oo ardayga yar laga yaabo xataa inaanu saacba heli karin waxaa la yidhahdaa ilaa shahaadada lacag aad bixisid ama shahaadada aad lacag aad wasaaradda kusoo bixisid shahaadadii lagu siin maayo oo wax in badan soo taxnaayo ilaa iyo bilowgii ilaa imikada way taagan tahay marka runtii bal arrintaasna lafteedana maxaa kala socotaan arrimahan kale ee inanku inaga weydiiyo waxbarashada lacagta laga qaado taysaska iyo lacagta laga qaado shahaadooyinka runtii waa wax dad fara badan isweydiinay anigagan baa isweydiiyey markii carruurtaydu ka qalin jebisay jaamacadaha oo laygu yidhi shahaadadii la kaalay lacag hadda lacag baan jaamacadda ka bixinayay oo sanad walba dee ardaygii jaamacadda dhiganayay lacagtiisii baan bixinayay haddana waa jaamacaddii oo kule wixii aan wax kugu baray shahaadaduna de waa markhaati kaci lafteedii keen lacag ayay ku leedahay jaamacaddii waa arrin markaad isweydiiso yani qofka biniaadanka maskaxdiisu markuu isweydiiyo war haddii jaamacaddan aad lacag siinaysay oo aanay bilaash wax kugu barin sababtay kuu leedahay haddaba shahaadadii qudheediina waan kaa iibinaya ila cilmigii ay ku bartay ayaa waxay ku leedahay haddaba markhaatigiisiina aan kuu markhaati fure keen lacag arrintaas waa arrin maaragtay u baahan dib u eegis hadduu alluu ka dhigo iyada hadday tahay taa taysaska la qorayo ee ardaygu qorayo markuu qalin jebinayo iyo hadday tahay taa shahaadadda iyo hadday tahay xataa dirayska loo xidho maalintaa ay qalin jebinayaan waxaan halkaa isleeyahay hadduu alla ka dhigo wasaaradda waxbarashada xildhibaanada waan uga mahadnaqayaa labadii sane ay joogeen inay miisaaniyadda saxitaan doora ay ku sameeyeen sidii halkan ay ka sheegeen miisaaniyaddu mar waa samayn marna waa fulin marna waa dabagelid iyo qiimayn dabagalka iyo qiimayntu aad iyo aad buu muhiim u yahay waxaana door weyn ku leh hanti dhowraha guud su-aashaydu waxa weeyaan hanti dhowraha guud ma la hoos keeni karaa baarlamaanka marka ay noqoto magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa labadaba waayo xukuumaddu iskuma hesho inay bajetkiina fuliso qofkii qiimaynaya dabagelayana iyadoo ay magacowdo hanti dhowraha guuda qaranku runtii dee magacaabistiisa annagu ka gol ahaan wuxuun baanu leenahay xeer dejin inaanu wixii xeeraa u dejinno laakiin magacaabis ma lihin ciddii la magacaabayo madaxweynaha ayaa magacaaba ciddii uu soo magacaabana waa ansixinaa annagu markaa ansixinun baanu leenahay wixii xeera dadka qabanayana waanu samaynaa saasaanu u kala duwannahay oo dee wixii magacaabisna hay-adda executive-kaa iska leh wixii xeer dejinana annagaa iska leh su-aashaas saas ahayd baan filayaa ku galo su-aalahaygu way fara badan yihiin su-aasha ugu horreysa waxa weeyaan maadaama aad tihiin golihii sharci dejinta maxaa indii ka qorshaysan hablaha shaqaalaha ah ee guryaha ka shaqeeya ma haystaan xeer ilaaliya sababtoo ah tacadiyo badan baa ku dhaca hablaha guryaha ka shaqeeya ee loo yaqaano shaaqiyadaha ma haystaan xeer ilaaliya isla markaa dadkay u shaqeeyaan waxay kala kulmaan tacadiyo fara badan haddaan ku yaro noqdo su-aashay ahayd inantaasi weydiisay ay tidhi jaariyadaha hablaha jaariyadaha ah ee shaqaalaha ah xuquuqdooda maxaa idinka qorshaysan iyo gudnuunka fircooniga ee runtii horta dee iyadoo horeba uga jawaabay xildhibaan jamaal haddaan ku yaro noqdo su-aashaas hablaha jaariyadaha ahi dee wuxuun bay ka mid yihiin shaqaalaha rayidkaa shaqaalaha rayidkaa
shaqaalahana xeerkiis hay'adda shaqaalaha dee waa inagii ansixinay oo uu dhammaaday dhammaan xeerkaa waxaa la wixii shaqaale koobsanayay baa ku dhan inanta markaa dee waxun bay ka mid tahay shaqaalaha bulshada rayidka wixii u baahatana waxun bay u raacaysaa uun dee xeerka shaqaalaha gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga ahi marka hore dad islaam weynahay oo shareecada islaamku waxbay inoo bannaysay dastuurkeennana waxaa ku yaalla wax kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka waa waxba kama jiraan marka xadkii ay diinta islaamku oggolayd oo ah dee intii ay siisay shareecadu ayuunbaynu inaguna inoogu dhan tahay oo dee annagana ka baarlamaan ahaan kaasun baanu annaguna runtii waafaqsannahay wixii siyaadaahi sidaa shacabkuba ama ummadduba ay uga soo horjeedo aanay saxinimadeedii iyo dhibta ay ku hayso shacabka looga soo horjeedo ayuun baanaan wala raalli ahayn waxaanay ku koobantay taasi xadkii ina siiyey shareecadu islaamku waynu ku koobnaanaynaa taasaanaan nooga qorshaysanano dee annagu na xukuma taan intaasaan ku dhaafaynaa